السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV qodobada idin kaga hayo waxa kamid ah Bale ayaa sii joogi doona Real Madrid Chelsea ayaa xiriir la sameysay difaaca Roma Spinazzola Liverpool ayaa qorsheynaysa dalabka Saul Man City ayaa seegi doonta dalabkeeda Grealish intaasi waxa ay qodobadii wararkii ciyaaraha tan ku soo dhawaadey isagoo faahfaahsan Bale ayaa sii joogi doona Real Madrid faafahinta warkan waxa inoo heesa Muno Ismaan Cali Gareth Bale ayaa qarka u saaran inuu sii joogo kooxdiisa Real Madrid xilli ciyaareedka cusub ee 2021 ilaa 2022 sida ay qortay Daily Mail ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Wales ayaa hal sano uga hartay qandaraaskiisa Real Madrid balse maamulaha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti ayaa u muujiyay xidiga inuu u baahan yahay waqtigan maadaama uu Gareth Bale uu amaah xilli ciyaareedkii hore ku qaatay kooxda Tottenham Gareth Bale ayaa kooxdiisa Real Madrid sanadkii 2013 waxa uu waqtigan haystay heshiis u soconaya ilaa 30 Juun ee 2022 Chelsea ayaa xiriir la sameysay difaaca Roma Spinazzola Chelsea ayaa xiriir la sameysay difaaca kooxda Roma ee Leonardo Spinazzola kadib dhaawacii ka soo gaaray xulkiisa Spinazzola ayaa sheegay in xulkiisa la sii jaan qaado tartanka qaramada Yurub waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa 7 bilood taas oo la micno ah inuusan mar kale ciyaari doonin sanadka 2021 maamulaha cusub ee kooxda Roma ee Jose Mourinho ayaa wax ka ogaanaya xaaladda caafimaad ee Spinazzola taasi waa sababta ay Chelsea u daawanaysa ciyaaryahanka boosaska badan ka ciyaara ka hor dhaawacii xumaa ee uu diiday inuu u dhaqaaqo garoonka Stamford Bridge sida ay qortay Mirror Liverpool ayaa qorsheynaysa dalabka Saul faafahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Cumar Xuseen kooxda Liverpool ayaa u soo baxday tartan culus oo ay kula soo saxiixanayso xidiga kooxda Atletico Madrid ee Saul Liverpool ayaa raadinaysa bedelka Wijnaldum kaasoo si bilaash ugu soo biiray kooxda reer France ee PSG Atletico Madrid ayaa wada hadallo hormuud leh kula jirta sidoo kale ciyaaryahanka khadka dhexe ee Rodrigo de Paul xilli ciyaareedkan 26 jirkan ayaa jeclaan lahaa inuu tijaabiyo tayadiisa horyaalka Premier League inkastoo uusan ka soo horjeedin inuu sii joogo kooxdiisa Atletico Madrid Saul ma ahin dooqa kaliya ee Jurgen Klopp si kastaba ha noqotee kooxda Liverpool Man City ayaa seegi doonta dalabkeeda Grealish faafahinta warkan waxa inoo heesa Muno Ismaan Cali maamulka kooxda Manchester City ayaa qarka u saaran inay weysa laacibka muddooyinkan baraadinaysa ee Jack Grealish waxaana suurtagal ah inaysan helin fursad kale oo ay kula soo saxiixdaan xidigan inta laga gaarayo sanadkii 2023 laacibkan heerka caalami ee dalka England ayaa la xiriirinayaa qandaraas cusub oo kula sii jooga Villa Park taasoo ka dhigaysa inuu suuqa ka maqnaado ugu yaraan 2 sano Pep Guardiola ayaa muddaha ku raad joogay in laacibkan uu ku buuxiyo booska weeraryahanka u dhawaan Faraji Sergio Aguero oo dhawaan ku biiray kooxda Barcelona Bellerin ayaa wali diiradda u saaran kooxda Inter Milan faafahinta warkan waxa inoo haya Xasan Cumar Xuseen difaaca kooxda Arsenal Hector Bellerin ayaa wali diiradda u saaran kooxda Inter Milan Tuta Sport ayaa sheegay in ay Bellerin u baahan tahay inuu saxiixo Inter Milan marka loo fiiriyo difaaca kooxda PSV ee Danzel Hector Bellerin ayaana u muuqday inuu yahay ninka Arsenal ay ku faraxsan tahay inay iibisay xilli ciyaareedkan ciyaaryahanka reer Spain ayaa u dhibaatooday qaab ciyaareedkiisa kooxda halka dhaawacyada ay sidoo kale ay yihiin kuwa aan fiicnayn balse dalabka xidigan ayaa fulin kara anduun dhan 30 milyan oo gini inuu ku tago garoonka Emirates Hector Bellerin ayaa diiday inay wada shaqeeyaan maamulaha kooxda Mikel Arteta xilli ciyaareedka cusub Man United oo kor u qaaday ugaarsiga Camavinga faafahinta warkan waxa inoo heesa Muno Ismaan Cali Manchester United ayaa kor u qaadaysa dadaalkeeda ay ku doonaysaa inay ku soo jiidato Eduardo Camavinga kooxda Reds sida ay qortay The Guardian 18 jirkan qadka dhexe ayaa kamid ah rajooyinka ugu xiisaha badan kubadda cagta Yurub iyadoo Red Devils ay doonaysaa inuu ku iibsato awood Eduardo Camavinga ayaa shakhsiyan jecel inay eegto waqtigan kooxaha awoodda ku dhexla tartamada qaaradda Yurub Camavinga ayaa waqtiga waxa la xiriirinayaa kooxaha kale ah Paris Saint-Germain Manchester United Real Madrid iyo Juventus xilli ciyaareedkan intaasi waxay ahaayeen wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV waa anigoo ah Qamar Maxamed Cumar sidaas nabadgelyo